waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خياري كوسو دوادا وركة تلفزيونka caalamiga ee Soomaali Channel ee kaga imaanaya magaalada Hargeysa warka waxa uu diyaar anigu Axmed Maxamed Jaamac qodobada wararka ugu doorka roona waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay qaataan aqoonsiga iyo baasaboorka cusub ee dawladda Soomaaliya dib u habeynta ku sameysay gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo sharci darro ku tilmaamay go'aankii gudoomiyaha maxkamadda sare uu ku joojiyay kalfadhiyada golaha wakiilada Somaliland dibadbax ballaaran oo lagu dalbanayo in sharciga la horkeeno dadkii ka dambeeyay dilkii dhakhaatiirta Soomaalida ee ajnabiga ahayd oo ka dhacay magaalada Muqdisho magaalada Garowe musharaxiinta u tartamaya xilka madaxnimada Puntland waxay go'aankooda u gudbiyeen ismada Puntland si xal looga gaaro khilaafaadka dhinaca sharciga ah ee soo xulista golaha wakiilada Puntland magaalada London jaaliyada Somaliland ee ku nool galbeedka London ayaa xaflad ay soo qabanqaabiyeen waxay abaalmarino kala duwan ku guddoonsiyeen shakhsiyaadkii ugu fiicnaa sanada 2013 dhinaca wararka dibadda madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay ra'iisul wasaaraha dalka Japan oo booqasho hal maalin ku jooga magaalada Djibouti iyo qarax xooggan oo 10 ruux ay ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Benghazi warkaas oo fidsan intayna u gelin bal qadar yar oo xayeysiisa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay qaataan baasaboorka cusub iyo ID-ga cusub ee dawladda Soomaaliya ay dib u habeynta ku sameysay Nimco Maxamed Bashiir ayaa warka eegayso Muqdisho ka soo dirtay munaasabad lagu daafurayay baasaboorka ID ee Soomaaliga oo dib u habeyn lagu sameeyay isla markaasina lagu shaacinayay warqadaha aqoonsiga Soomaalinimada oo markale laga hirgeliyay Soomaaliya ayaa waxa ka qayb galay madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud qaar ka mid ah safiirada caalamka oo fadhiya Soomaaliya mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka maamulka gobolka Banaadir saraakiisha laamaha amniga ee dawladda iyo marti sharaf kale taliyaha hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Jenaraal Cabdullaahi Gaafo Maxamuud ayaa ugu horeyn sharaxay faa'iidada baasaboorka waxyaabaha ay ku soo kordhiyeen iyo waliba shuruudaha looga baahan yahay dadka qaadanaya baasaboorkeena inaan mid la been abuuri karo oo ahayn mid rasmi ah inuu yahay marka horeba waa lahayn laakiin maanta waxaan dalka u joogno waxay tahay inaan dalka gudihiisa lagu sameynayo waxay su'aalaha naga hor imaanayo laba su'aal oo dhinacna aan uga bixi weynay mid hore waxay ahayd yaa horta Soomaaliya oo baasaboorka xaq u leh inuu qaato taas muddo dheer kadib iyo dagaal dheer oo aan ku haynay baasaboorka cagaarka ee dalkeena iyo dadkeena dhibaatada u geystay maanta waxaan ka soo gudubnay inaan kaas ka baxnay aan dhihi karno yaa la siinayaa waxa la siinaa qofkii Soomaaliya ee dawladaha hoose ay siiyaan warqadii aqoonsiga leh warqadii faraha CID oo inuu dalka dambi ku lahayn wadana warqadii dhalashada inta markii la helo oo la isku xiray oo aan cid dhexgali kartaa aysan jirin oo maxaa la yiraahdaa qofka Soomaaliya markuu baasaboor doonayo wuxuu tagayaa dawladaha hoose wuxuu ka soo qaadan doonaa warqadii dhalashada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hadal ka jeediyay gabagabadii xafladda ayaa ku dhiirigeliyay shacabka inay sameystaan warqadaha aqoonsiga iyo dukumeentiyada kale ee muhiimka u ah qaadashada baasaboorka waxaana madaxweynuhu uu hay'adaha ku howlan dhaqangelinta barnaamijkan uu ka codsaday in bixinta warqadaha aqoonsiga ay gaarsiiyaan dhammaan gobolada dalka wasaaradaha dawladda oo dhan waxaa mas'uul ay ka yihiin cidda ay khusayso systemkan dadka meesha ugu dhow oo gaari karaan sida ugu sahlan oo ay u gaari karaan in maxaan ku iyo qiimaha ugu yar ay ku heli karaan waxana waa cost
qiimay leeyihiin technology waaye muxuu ahaay qiimahaas dadka Soomaaliyeed waa inay bixiyaan culaysay leedahay waxbay leedahay waan garanaynaa time laga yaabaa inay qaadato oo dhowr saacadood meesha cabdilashada ka tagtid aad muxuu laga yaabaa nus saac iyo ka yar daqiiqada inaad ku soo heshid in waqti dheer ay ka qaadato laga yaabaa waxaas waxay noqonayaan dabcan qiimaha aan waxa fiican oo aan rabno aan u horeeyay noqonayaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda la xiriirka qosaysa arrintan oo dhan waxaa mas'uuliyadda koobaad saaran ay tahay muwaadinka meel kasta uu joogo intay u dhawaan karaan u tegi karaan inuu tagaan xamar kaliya inuu ku xirnaado oo baasaboorka xamar laga soo doonto ID-ga maxaan ku yiraahdaa ID-ga dabcan gobol iska iyo degma iska leh meel gaar ma laha laga soo yani wixii asliga ah ee systemkaas uu tilmaamay Muqdisho laga soo doonto in la yiraahdo kaliya suurtagal ma aha dhammaan gobolada waa in laga helaa dhammaan intii suurtagal degmooyinka waa in laga helaa dadka Soomaaliyeed dhammaan meel kasta ay joogaan waxaan ugu baaqayaa in la isticmaalo systemkaas loo hogaansanaado kostiga iyo qarashka uu leeyahay loo bareero si aan masaalixda iyo fawaaidda ku jirta aan u helno balaarinta iyo casriyeynta baasaboorka iida iyo national ID-ga oo dawladda Soomaaliya ay u aragto in dhaqangelinteedu ay wax badan ka bedeli doonto xaaladda amni ee dalka ayaan la ogeyn qaabka ay uga dhaqangeli doonaan gobolada dalka gaar ahaan deegaanada ay gacanta ku haysa xarakada Al-Shabaab iyo waliba deegaanada hoos yimaada maamulka Somaliland oo aan laga ogoleen baasaboorka Soomaaliya nimca maxamed bashiir Somali Channel magaalada Muqdisho dibadbax ballaaran oo laga dalbanaya in sharciga la horkeeno dadkii ka dambeeyay dhaqaatiirtii lagu laayay duleedka magaalada Muqdisho ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho Ibrahim Sheekh Xuseen Sheekeeye ayaa warkaas ka soo diray Muqdisho xilli la sagootinaya dhaqaatiirta Siiriyaanka ee ka badbaaday falkii foosho xumaa ee maalmo ka hor lagu dilay dhaqaatiirta isugu jirta Siiriyaanka iyo Soomaalida ayaa maanta waxaa Muqdisho ka dhacday dibadbax lagu muujinayay sida Soomaalida ay ugu xun yihiin arrinkaasi kaasoo ay dhigeen ardada wax ka barata jaamacadaha dalka waxaana ay sheegeen in wax laga xumaado ay tahay in dalka lagu dilo dad u yimid inay caawiyaan dadkan dhibaatada la daalaa-dhacaya وجنو تيرايدا iyo xumaa iyo xanuunka nagu haay dhibaatadii ku dhacday dhaqaatiirtii walaaleenaha ee ajnabiga ah ee wadankeena yimid ee martida noo aha dhibkii gaaray in anaga raali ka ahayn oo aan waxa anaga ku faraxsanahay anagu ku hadleena dhamaan ardayda medical student meel walba ay joogaan qaasatan ku nool magaalada Muqdisho aan usoo kala harin waxa halkan ka cadeynaa in aad uga xunnahay waxa raali ka ahayn Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Fiqi gudoomiyaha guud isbitaalkii ay ka howlgalayeen dhaqaatiirtii la dilay iyo kuwa haatan baxayaba ayaa isagu dhankiisa waxa uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay gacan ka geystaan soo qabashada raggii ka dambeeyay falkii dhacay arrintan dhacday inaan aad iyo aad uga xunnahay anoo ku hadlaaya afka jaamacadaha Soomaaliyeed dhaqaatiirta iyo dadweynaha Soomaaliyeed oo dhan guud ahaan mar labaad waxaan ku celinayaa in mataqaana hal meel looga soo jeesto oo aan mataqaana loo jixin dadka dambiilayaasha xaqiiqa waxa ah dad badan inay og yihiin inay mataqaana ku qarinayaan qabiil iyo qurun iyo mataqaana reer jufo waaye ma suurtoodo intaas oo nin oo hubaysan oo waxaysan inaan loogeyn wax macquul ma ahan waa wax jira insha Allah waxaan rajaynayaa in la soo qaban doono cadaaladana la soo horgeyn doono dhinaca kale waxa olol nadaafadeed ay ka soconayaan deegaano iyo degmooyin kamid ah magaalada Muqdisho taasoo ay ugu horeyso degmada Warta Nabadda gudoomiyaha degmadaasi Deeqa Cabduqaadir Axmed oo la hadashay Somali Channel ayaa waxa ay sheegtay inay wadaan la dagaalanka waxyaabaha nadaafad darida dhalin kara iyadoo dadka degan degmadaasi ugu baaqday inaanay wax qashina ku soo daadin wadooyinka iyo laamiyada degmadaasi waxaan wadnaa campaign la dhahayo olol nadaafadeed iyo naleynta wadooyinka waa wadnaa laakiin maanta waxa culays ka saarnay wadooyinka qashinka la dhigayo iyo guryaha aan jibinay iyo meelaha dadka ay caadaysteen inay wax ku soo shubaan waxaan rabaa inaan u sheego dadka ganacsatada ee laamiga ku ganacsanaya cid ay canshuur siiyaan malaha ka joojiyaan laamiga qashinka cid lagu arko sharciga waafajinayna wana ganaaxayna haduu Ilaahay ka raali noqdo waxaan rabaa dadka shacabka nadaafada iimaanka barkiisa waa inay amniga ka qayb qaataan naleynta ka qayb qaataan wadooyinkan awal meelahan aan hadda joogno ee xamar jadiid ee meesha biyo dageenka in dadka lagu dili jiray waan lagu baaran jiray waxa ku yaala geed yahuudiyo iyo tiitiino iyo guryo sharci darra intiba waajibin maanta qashinkii intaas laga sameeyay aan gureena marka waxa la rabaa dadka inay dib qashinka ugu soo celin in la haama laga helayo waa in guryahooda inta godad ka qotaan ee hortooda ku aastaan waa Ibrahim Sheekh Xuseen Sheekh Axmed Sheekeeye Somali Channel Muqdisho
musharaxiinta u tartamaya xilka madaxnimada Puntland oo kulan ku yeeshay magaalada Garowe ayaa shaaciyay inay go'aankooda u gudbin doonaan isimada Puntland si looga gaaro khilaafaadka ka jira dhinaca guddiga xulista baarlamaanka. warkaas waxaa noo soo diray Maxamed Saciid Yuusuf oo Garowe nooga soo warama. shirkan ay maanta yeesheen musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada Puntland oo warbaahinta dibadda ka joogtay ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta uga waramay waxyaabihii ay ka wada hadleen musharax Cali Xaaji Warsame oo tilmaamay in shirkoodu ku saabsanaa sameynta guddi soo diyaariya qorshe ay u gudbin doonaan isimada Puntland si ay u soo dhaxgalaan khilaafka u dhaxeeya musharaxiinta iyo madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Faroole. waxaanu halkan maanta ku lahayn shir aan uga hadlaynay duruufta adag ee Puntland marayso iyo khilaafkii ka dhex jiray dawladda iyo musharaxiinta ee ku saabsanaa guddiga khilaafaadka. waxaanu ka wada hadalnay arintaas inaanu u saarno guddigaasna ay soo diyaariyaan warkayaga oo rasmi ah warkaasna aanu gaarsiino isimada Puntland iyaguna markaas ay noqdaan cid qaadanaysa go'aanka kama dambaysta ah. arintaasna kulligayo waanu ku heshiinay. waxaan u mahadnaqaynaa in alla intii nala soo xiriirtay oo ay kamid ahaayeen xubnaha baarlamaanka hore kamid ahaan jiray bulshada rayidka ah haweenka iyo qaybo fara badan oo bulshada kamid ah oo kulligood daneynayay in doorashadani ku dhacdo si xalaal oo nabad ah. anagu waxaan rabnaa doorashadu inay nabad ku dhacdo, waxaan rabnaa inay waqtigeeda dhacdo, waxaan rajaynaynaa inaysan daahinin go'aanka isimada Puntland. maraan wax ka weydiinay waxa ka soo baxay kulan ay shalay musharaxiintu la qaateen guddiga ansixinta baarlamaanka ee uu magacaabay madaxweynaha Puntland kuwaasi oo ay hore u sheegeen inay ka soo horjeedaan ayuu ku jawaabay. guddigu iyagaana dalbaday waxaan naga codsaday inaanu dhageysano. guddiga waa dhageysanay waana ku mahadsan yihiin. waxaanu ka wada hadlo inta ka dambeeya ma jiro wax qoraal oo naga soo baxay oo aanu ku waafaqnay guddiga dadka waanu dhageysanaynay taladoodana waanu qaadanaynay wixii nooga soo baxay iyo talaydu waxay tahayna ismadaan u gudbinayn waanu dhageysanay oo kaliya. doorashada dhashaan oo doorashadu ay dhacday 8 January maanta bishu waa 22 waqtigii loogu talagalay in mudanayaasha baarlamaanka lagu soo xulo waxa ka hadhay 4 cisho. ولينا مرنكيني iyo waxyaabihii adiidaneedin uu taagan yahay maxaa xal asee anagu arinta ma aanan keenin. anagu waa la hadalay waxaanu sugaynay in madaxweynuhu nagala tashado guddiga khilaafaadka iyo xalinta iyo soo xulida baarlamaanka. anagu waqtigeedii baanu ku nimid 2008 doorashada 2009 ahayd waxa isimadu go'aanka ka gaareen 20 December. haddii la dadaalo waqtigu waa fiican yahay hadeerna isimadu aan mas'uuliyadda ku celinay iyagana go'aanka iska leh. marka laga yimaado hadalka kooban ee musharax Cali Xaaji Warsame waxa goobta ka muuqday kala fikir duwanaansho u dhaxeeya musharaxiinta iyadoo musharaxiinta qaarkood laga dheehan karay inaysan ku qanacsanayn waxa goobta ka socday waxaana warar hoose oo aan ka helay ila ka agdhow musharaxiinta ay sheegayaan in musharaxiintu isku khilaafsan yihiin arinta la xiriirta guddiga ansixinta baarlamaanka oo qaar ka mid ah musharaxiinta ay xal u arkaan in laga tanaasulo maadaama waqti kooban uu ka haray xilligii doorashadu dhici lahayd. Maxamed Saciid Somali Channel Garowe. magaalada London jaaliyada Somaliland ee ku nool galbeedka London ayaa xaflad ay soo qabanqaabiyeen waxay abaalmarino kala duwan ku guddoonsiyeen shakhsiyaadkii ugu fiicnaa sanada 2013 kuwaas oo dalka iyo dibadaba wax ka qabtay. waxaana munaasabadan ka qayb galay mas'uuliyiinta safaaradda Somaliland ee dalka UK iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo mas'uuliyiin kala duwan. waxaana u dhacday xafladan sida tan.
mudanayaal aad baan idin soo dhaweynayaa idin salaamayaa madaxda sharafta leh ee nooga timid Somaliland madaxda UK dadweynaha ay jecel ee goobta ku sugan iyagana aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan kaloo mahadcelinayaa West London community iyo aamin iyo aymaan iyo staffka kale Somaliland community gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa sharci darro ku tilmaamay qoraal ka soo baxay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland oo lagu hakinayo kalfadhiyada golaha wakiilada ee Somaliland. Khalid Ibrahim Cabdi ayaa warkaas noo haya. qoraalkan maxkamadda sare Somaliland ay gudbisay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Ciro kaasay ku joojinayso fadhiyada ay golaha wakiiladu yeeshaan waxaana qoraalkaasi sharci darro ku tilmaamay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Ciro. golaha si rasmi uga jawaabi doonaa kulliga warqadaas waxaan uga digayaa waxa qaranku inay isfarageliyaan gudoomiyuhu waxa kale uu jawaab ka bixiyay eedo uu geeyay labadiisa gudoomiye ku xigeen kuwaas oo sheegay in baarlamaanku isku bedelay xarun uu ku ololayo xisbigiisa wadani inaan xisbi ka tirsanaanahay ceeb maaha ayuu kulmiye sheegteen haddaan anigu wadani ahay maxaa ka jira halka loogama ololayo wadani xafiisyo leeyahay xarumu leeyahay hadduu munaasabad leeyahay hodheelo ku qabsadaa halka kuma qabsado geestagala gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cud injineer Faysal Ali Waraabe ayaa ugu baaqay maxkamadda sare inay xaq u leeyihiin isku shaandhayntan ay xildhibaanadu sameeyeen markii waxa cadaatay markii dhacay in reform isku sameeyaan wakiiladu canaantii adduunka iyo shacbiga ku qabsatay war waa maxay baarlamaankan aan magaranaysaa dhufaanan waxba aan qabanaynin damcadeen arrintoodii qabsadaan dawata magaranaysaa iyagina marka budka la fuulay marka nidaam darrada dalka ka taagan ayay ka mid tahay waxaan ka qaylinay sanadka dhan ka qaylinayaan war dalka wuu isdhaxyaacay bay ka mid tahay marka waxaan leeyahay sharciga hala ilaaliyo constitutionka hala ilaaliyo muranka laga baxo khilaafka u dhaxeeya shirgudoon golaha wakiilada ayaa noqonaya kii ugu xooganaa soo dhaxgala shirgudoonka waxaana hadda muuqatay in waaxaha garsoorka uu gudbay Khalid Ibrahim Cabdi Somali Channel Hargeysa. xaflad lagu soo gootinaya ardayda dhameysay kulliyadda qaybta shareecada ee jaamacadda Bariga Afrika ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso waxaana warka mar labaad noo soo diray wariye Axmed Nuune oo Somali Channel halka uga soo warama. munaasabadan oo ahayd mid si heersara loo soo agaasimay ayaa lagu soo gootinayay ardayda dhigata jaamacadda Bariga Afrika gaar ahaan kulliyadda shareecada kuwaas oo horaanta sanadkan ugu soo aadan ka qalin jabin doona. munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda Bariga Afrika waxgarad isimo aqoon-yahano iyo qaybaha kale ee bulshada iyo sidoo kale qaar ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda. ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay oo ka warbixiyay ardadan iyo qiimahooda hormuudka kulliyadda shareecada Maxamuud Sheekh Cismaan. sabarka iyo dulqaadka iyo waxbarashada in muhiimad la siiyo waa in wax walba laga hormariyo. 4 sanana waa waqti dheer badan
marka aan ka gudbo nuqtada ma garanayo siiradaa yar inaan sheegay iyo inaanan sheegin kii fiicnayd ma ogi guud ahaan ardayda fara badanee ama kuliyadda ka baxdo ama dhigato si fasalna waa ugala hadlaa arrintaa si caamna hadda waa u oranaya waxyaalaha aad ku baraarujinayo waxaa ka mid ah marka aad kuliyadda ka baxdaan ama xataa inoo kuliyadda inta aad dhigataan isgarab istaaga waxaa isweydiisaan su-aal ah maxaa wax wada qabsan kartaan maxaa wax abuuran kartaan. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika cabdirasaaq hiirad. hordhac ahaan waxaanu leenahay mabruuk hambalyo in dadaalkii 4 sannadood aad soo wadeen miraheeda inaad hadda buranaysaan runtiina waxa weeye ardayga markan oo kala jooga ee qalin jibinayo oo semesterka u dambeeyay jooga. gudoomiyaha hore ee jaamacadda bariga afrika maxamed aadan ayaa sidoo kale munaasabadan ka hadlay. runtii siduu u sheegay dhinka kuliyadda macallin maxamuud ardadaan qalin jabinaysa runtii taariikhdaas waa isla soo marnay sabarka iyo dhibka maartay maxaan ku yiraahdaaye ay soo mareen waana xasuusanaa mar kastana waxa weeyaan qofkay xafiiskiisa imaan jireen oo garaaci jireen albaabka anu ahaa oo dhihi jireen maartay maxaan ku yiraahdaaye meel fiican baan rabnaa. gabagabada ayaa waxaa halkaasi dareenkooda cabiray qaar ka mid a ardada loo qabtay munaasabadani. إن شاء الله تعالى إخوتي في الله meeshan haddan marayna si culimada inoo sheegtay iyo aqoon-yahanadii iyo barofesoradii waxa weeye waa bilow weeye ma ahan nihaayadii ma ahan inaan juhdigan sii laalaabno waxaan baranayna aad ogtihiin waxa waa shariicada islaamka oo wax la barta wax ugu qiimo badnaa ardadan oo muddo 4 sano dhiganaysay kuliyadda shareecada ayaa ka qalin jabin doonta horaanta sanadkan ugu soo aadan jaamacadda bariga afrika xarunteeda magaalada boosaaso. axmed nuune tv-ga caalamiga Somali Channel boosaaso. gudoomiyaha gobolka togdheer ayaa dhagax dhigay mashaariic dhinaca waxbarashada deegaamada miyiga ee gobolka togdheer. maxamed cawad ayaa warkaan nooga soo diray magaalada burco. mas-uuliyiinta maamulka gobolka togdheer iyo kuwa degmada burco ayaa maanta si wada jir uga dhagax dhigay deegaanka waraabeeye ee gobolka togdheer hirgelinta mashaariic ay ka mid yihiin dhismaha saldhig booliis iyo xarunta maamul ee yeelan doonto degmada waraabeeye kuwaasoo ay hirgelintooda ay gacan weyn ka geysan doonaan qurbajooga deegaankani iyo shakhsiyaad kale. waxaana munaasabada dhagaxdhigani kasoo qayb galay maamulka degmadaasi xildhibaano cuqaal iyo waxgarad kale oo tiro badan. waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada waraabeeye axmed diriye bulle oo ka warbixiyey baahiyaha kala duwan ee ka taagan deegaankani baaqna u diray qurbajooga. markii maadaama ay ka mid ahayd xorayntii waddanka waraabeeye ama degmadani ma ahayn maanta inay wakhtigan ay dayacnaato. waxaan odhan karnaa markaa waxaa gabay dadkii lahaa. sidoo kalena waxaa iyaguna kulankani ka hadlay gudoomiyaha guddiga dibudhiska deegaankani cuqaal xildhibaano iyo waxgarad kale oo tiro badan kuwaas oo dhammaantoodba soo dhoweeyey hirgelinta dhismahani xuseyna baahiyaha ka jira deegaanka. waxaan ka codsanayaa maxaan ku dhahay madaxda gobolka iyo madaxda degmada maanta halkan martida igu ah ee nala jooga ee nala dhagax dhigtay intaanu taaganahay degmada gubado waxaan idinka codsanaynaa haddaan nahay dadkii deegaanka anoo ka wakiilo weliba qurbajooga iyo deegaanka waraabeeye iyo aaggiisaba waxaan idin leeyahay hawshaa waanu bilownay gacmo furan baanu idinka fadhinaa inay wax nagala qabataan baanu idinka fadhinaa. waxaa maanta anigu kulley shakhsiyan farxaan cabdi xorsi ahaan halkan aan ka ballan qaadayaa aroortan aan soo rarayaa 500 oo midho sibidha oo aan ku darsanayo dhismahan haddii ilaahay ka dhigo. geestoodana gudoomiyaha gobolka togdheer axmed cumar xaaji cabdilaahi xamarji duqa degmada burco maxamed muraad ku-xigeenka duqa burco maxamed jaamac xasan xoday iyo taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka togdheer gaashaanle axmed xasan cabdiraxmaan ilka casi ayaa soo dhoweeyey dhagaxdhigga goobahani ballan qaadayna inay qaybtooda bixin doonaan. waxaan mar labaad oo kale idinka ballan qaadayaa wax allaali wixii dowladda dhexa nagaga keen xidhmay inaanu gacan weyn idinka siinayno. waxaan ku boorinayaa wax wada qabsigu waxa weeji waa wax horumar ay bulsha ku gaadho. waxaan idinku guubaabinayaa
kolley mar aad noo soo qabataan aabbaa qaatay waxarka la yidhaahdana ha nagala bakaylina dadweynaha dadka xoolo dhaqatada ah waxaan ku gubaabinayaa aabbaa qaatay kolay ku tahay noo keenaa si degmadu waxaynu uga dhigno maanta la isaga warrami maayo dadkii qaangaadhka ee wakhtigaa jooga waraabeeyay iyo taariikhdiisa cidna isaga warrami mayso reerkeennana dee ninkii wax kala hadho qoodhee xaradaa jubtay baa layidhi wuxuunbaa qof kastaaba looga baahan yahay inuu ku daro annagu markaanu nahay golaha deegaanka degmada Burco kolley dimaayarkii odayaashana waanu sarki doono wixii nala ka baahdo af iyo adinba diyaar baanu nahay dhismaha degmada Gubado Waraabe ugu dambeyntiina dhagax dhigga goobahani kadib waxa ay guddiga dib u dhiska deegaanadani kormeer ballaaran ku soo mareen deegaano ay ka mid ahaayeen Xuseen Xamar Harada Ceeg Balisa Matariya Kabadheere kuwaasi oo dhammaantoodba waxgaradka iyo bulshooyinka ku dhaqan deegaamadaasi ay kala hadlayeen horumarinta iyo weliba wax wada qabsi daboola baahiyaha deegaankaasi oo la iska kaashado iyagoo ballan qaadayna inay jiraan mashaariic kale oo midhadhal ah oo iyana laga hirgelin doono dhammaanba deegaanadani waa maxamed caawud maxamed telefishinka caalamka ee Somali Channel Buro kulankan ayaa wuxuu ahaa kulan ra'yi ururin ah xeerka saxaafadda Soomaaliya ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Hiiraan kan degmada saraakiisha ciidanka AMISOM ee ku sugan gudaha magaalada Beledweyne iyadoo ugu horeyntii uu ka hadlay gudoomiyaha degmada Beledweyne Cabdi Bashaar Aadan Raaha ama dalkiisa caaya ama dadkiisa caaya ama ummadiisa caaya uu yiraahdo waxaan ahay saxaafad madax bannaan saxaafadda madaxa bannaan ee lagu sheegay qofka waxa uu leeyahay xurriyatul qowl laakiin ma ay ahaataa mid aan wax u dhimaynin dadkiisa iyo dalkiisa iyo ummadiisa iyo diintiisa waxaad moodaa in qofka haddii la yidhi xoraa tahay inuu asaga iscaayo xorriyada waxa waaye dacaayad aan sal iyo raadbinda lahayn wax walbana waxay ku kooban yihiin akhlaaqiyan inay u dhisan yihiin ayaa wanaagsan kadib waxaa ka hadlay sargaalka ugu sarreeya ciidanka AMISOM Colonel Cusmaan Dubade runtii waxay la tahay saxaafaddu inay tahay xuduudaha dawladnimo ama tamarta dawladnimo ayay ka mid tahay waxa weeye xuduudahaasi hadday dhan taalmaan dee antikaab baa la noqonayaa wad la socotaan qofku waxaa la idhaahdaa jiis baa la idhahdaa miya marka waxa weeye haddii saxaafaddu kaalinteedii ay gabto ay doorkeygii qaadan weydo dee waxaad la socotaan inay meeshaasi ay jirayso dhaliili ay jirayso kulankani ayaa wuxuu ahaa mid ay si weyn uga soo qayb galeen bahda saxaafadda ee ka howlgasha gobolka Hiiraan oo ay su'aalo ku weydiinayeen mas'uuliyiinta ka socota wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya gobolkan aad degantiin hadaa warkaas oo kale ka sheegtid waajibkaaga muxuu yahay marka in sharcigu ku qabanayo sharciga ku qabanayo been warkaasi haddii uu noqdo war been ah oo sida warkaas uu sheegayna uu ahaa war been ah oo ku turkuteena waana la socotaan haddii tusaale kale haddaan insiiyo waxaa jiraan website-yo runtii ka ganacsada ama ku shaqaysta maaragtay been abuurka waana wada taqaanaan war badan ku turkuteen sheega oo haddana been abuurka sheega oo ay ayaga dadka mas'uuliyiinta ama dadka kale ay u haystaan inay ummadda Soomaaliyeed ay waxay doonaan ka sheegi karaan sababta waxay degan yihiin Yurub iyo meelo kale sharcigan haddii la hormariyo waxaan xiriir la yeelan doonaa wadamo badan oo caalami ah waxaan awood u helaynaa in maaragtay dadkaas aan talaabo ka qaadno ugu dambeyntii waxaa soo gunaanaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Faarax Laqayo sharciyada saxaafadda Soomaaliya oo ay hogaaminayeen muddo dheer shirar badanna soo maray maraaxil badanna soo maray sida hadda noo cadeeyay inuu noqoto maalintii ay ku soo aaday gobolka Hiiraan wanaagna runtii aan u aragno in saxaafaddu ay hesho sharci kala hagaya qofka suxufiga u sheegaya waxa uu xaq u leeyahay iyo waxa uu xaq u lahayn taasoo runtii muddo badan lagu soo caanamaalay qofka wariyahay wuxuu doonay iska sheego taasna igu wacnayd inaan u jirin sharci hagaya ama wax uu raaco guidance inaysan jirin waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa hay'adda Internews oo runtii soo qaban qaabisay barnaamijkan iyo wasaaradda warfaafinta oo aad iyo aad isugu dhabarjibiyey in ay u hesho saxaafadda sharci saxa oo kala helaya oo qofkaas suxufiga ah siinaya xuquuqdiisa Cismaan Aadan Carays TV-ga caalamiga Somali Channel
dibadbax ballaaran oo lagu taageerayo ansixinta ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh ayaa lagu qabtay gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya waxaana soo qabanqaabiyay saddexda gole ee Ahlu Sunna wa Jamaaca ay ka kooban tahay soo ku soo waramayo wariye Maxamed Salaad oo naga soo warama Caabud Waaq isku soo bax lagu taageerayo meelmarinta ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Dr. Cabdiweli Sheekh ayaa maanta lagu qabtay magaalada Caabud Waaq isku soo baxan ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Weheliye Cirfe gudoomiyaha saddexda gole ee maamulka culamaa diinka Ahlu Sunna wal Jamaaca ee gobolada dhexe Sheekh Ibraahim Guureeye taliyaha qaybta 12aad Sulub Jinoole maamulka degmada Caabud Waaq iyo dadweyne aad u fara badan kuwaas oo watay calamo iyo boorar ay ku qoran yihiin taageerada ay ku taageersan yihiin ra-iisul wasaarahan cusub isku soo baxan ayaa waxa uu ahaa mid si weyn loogu taageersanaa ra-iisul wasaaraha cusub ee shalayto baarlamaanka Soomaaliya ay meel mariyeen khudbadihii mas'uuliyiintaasi ay isku soo baxan ka soo jeediyeen ayaa waxaa ka mid ahaa waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha cusub oo la magacaabay soo dhawow shacbiga Soomaaliyeed maanta wuxuu u ooman yahay nabadgelyo dowlad wanaag iyo horumar buu ooman yahay inaad noqoto ra-iisul wasaarihiisa oo isbedel keento maamulka degmada Caabud Waaq taliyaha qaybta 12aad gudoomiyaha saddexda gole ee Ahlu Sunna wal Jamaaca Sheekh Ibraahim odayaasha guurtida ee degmada Caabud Waaq iyo wixii ka jooga qaybaha kale ee gobolkaba waxay la tahay xafladan isugu nimid waa laga hadlay qodobkeeda koowaad waxay ahayd inaan maanta u ambaliyeyno bogaadino ra-iisul wasaaraheena cusub ee uu soo magacaabay madaxweynaheena qaranka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shalana cod aad iyo aad u badan oo 239 ah baarlamaanku ku ansixiyay halkaasna aan ka garan karno badinayo hadalka anuu marka hore ku hadli maayo codka gobolka Galgaduud waxaan ku hadlayaa codka gobolada dhexe ee sida ogaada sababtoo ah taliyaha waxaan ahay gobolada dhexe ee qaybta 12aad intaas kadib barnaamijkan waa kooban yahay marka hore waxaan ku soo dhaweynaynaa ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamuud waan ku soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa cadaalad baan ka rabnaa waxaan ka rabnaa midnimo Maxamed Salaad Soomaali Channel Caabud Waaq dugsiga sare Cumar Samatar ee magaalada Gaalkacyo waxaa lagu soo bandhigay laba buug ay qoreen qorayaal Soomaaliyeed soo ku soo waramayo wariye Maxamed Xuseen Xirsi oo Soomaali Channel uga soo warama Gaalkacyo xaflad aad u ballaaran oo lagu qabtay dugsiga sare Cumar Samatar ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa lagu soo bandhigay laba buug oo lagu kala magacaabo Liimaanta Qoyska iyo Sheekada Adduun waxaana xafladii lagu soo bandhigay buugtan ka soo qayb galay aqoon-yahano arday dhaqaatiir haween iyo maamulka dugsiga sare Cumar Samatar iyo bulshada qaybadeeda kala duwan Cabdisaaq Ismaaciil Xaashi Ciro oo ah qoraaga buugga Liimaanta Qoyska wakiilka ka buugga Sheekada Adduun ayaa magaalada Gaalkacyo ku soo bandhigay buugtan waxaana xafladii lagu soo bandhigay buugtan ka hadlay Dr. Maxamed Jaamac Salaad oo ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in wax la akhriyo waxna la qoro sidoo kale Professor Cawsi ayaa u mahadceliyay qoraayada buugtan kuna booriyay dhalinyarada inay ka faa'iideystaan buugtan sidoo kale Cabdisaaq Ismaaciil Xaashi Ciro ayaa waxa uu ka hadlay faa'iidooyinka ay leeyihiin buugtan iyo sida la doonayo in looga faa'iideysto markaan u soo laabto barnaamijkan runtii wax qorida oo aan gidigin intii ugu horeysay iyo gaar ahaan aqoon-yahankii markii ugu horeysay hadalka ku bilaabay muhiimiyadda uu leeyahay haddii aan wax la qorin wax ma sii jiri karaan maskaxdana haddaan laga shaqaynin ma sii kori karto taas dadku waxay u baahan yihiin inay iskaashadaan hal qof oo keligiis wax qori karaa ma jiro laana macluumaad baa u baahan tahay ama xog baa u baahan tahay xogtuna waxay ku kala jirtaa dad kala duwan haddii ayna marka xogta kaasinin gacan dadkaas kala duwan xog iskama samaysan kartid jeefkaaga mana keeni kartid haddii aan u soo laabto labada buug midka koowaad waxaa la yidhaahdaa Sheekada Adduun waxaa ku qoran in ku dhow 80 sheeko oo sheeko kastana ay xambaarsan tahay macno gooni ah sheeko kasta oo aad akhrido oo buugga ku jira waxaa qoray Dr. Maxamuud Cali nin la yiraahdo Maxamuud Cabdigiir buuggaas
aad buu u qiimo badan yahay wuxuuna qofka ka dhisayaa inuu noloshiisa si saxa u maamulo laanna waxaad u baahan tahay inaad wanaag ku noolaatay haddii aad inaad noloshaada si fiican u maamushid buugga labaad waxaa la yidhaahdaa liibaanta qoyska haddeer waa daabacaadii labaad midaani waxaa laga daabacay 20,000 oo koobi 20,000 oo kitaab baa laga daabacay ilaa iyo hadda buugga waxaan ugu talagalnay waxaad marka dareemi kartaa waxaas haddii meel kastoo qofka joogo shanta Soomaaliya iyo Yurub iyo meelaha Soomaaliya u degantoo dhan deegaanada Soomaaliya u degan yihiin buuggan qof kasta oo raba reer ama ha rabo inuu hadda guursado ama reerkiisa hore ha u qabay ha rabo inuu reer xasiloon helo wuxuu ku qasban yahay koobi ka mid ah inay buugisayaan ugu dambeyntii Cabdirasaaq Ismaaciil Xaashi Ciro iyo Cabdiraxmaan Shaafici ayaa booqday iskuulada iyo jaamacadaha magaalada Gaalkacyo ayagoo ugu dambeyntii booqashadooda ku soo gabagabiyay iskuulka sare Cumar Samatar ee magaalada Gaalkacyo ayagoo la dardaarmay ardayda kuna booriyay Maxamed Xuseen Xirsi telefishinka caalamiga Somali Channel Gaalkacyo cabdullaahi cali maxamed madaxweynaha maamulka ximan iyo xeeb ayaa xariga ka jaray qaybtan cusub ee lagu soo kordhiyay isbitaalka dhexe ee degmada Cadaado ee xarunta maamulka ximan iyo xeeb taasi oo qaabilsan hooyada iyo dhallaanka munaasabadan xariga looga jarayay ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Cadaado mas'uuliyiin ka tirsan maamulka ximan iyo xeeb iyo marti sharaf kale dhismahani loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka ee lagu soo kordhiyay isbitaalka dhexe ee degmada Cadaado ee xarunta maamulka ximan iyo xeeb ayaa waxaa suura geliyay qurbajooga ka soo jeeda ximan iyo xeeb ee ku nool qaybo ka mid ah wadamada dibadda Hibo Maxamed Yuusuf oo ah agaasima ku-xigeenka isbitaalka ayaa ugu horeyn ka hadashay munaasabada waxaana ay sheegtay in baahi weyn loo qabo qaybtan cusub ee lagu soo kordhiyay isbitaalka ujeedadaan isugu nimidnay munaasabadan maanta waxa weeyaan in la furo qaybta hooyada ee dhalmada oo isbitaalka lagu soo kordhiyay oo runtii ay sameeyeen fikirka dad qurbajoogi ay ka mid dhaliyeenna markii anaga qofkii ugu horeeyay runtii anaga caawasho badan gudbinay dhowr jeer meelo badan oo sheegnay fikirka qofkii ugu horeeyay yiri wuu dhaqaaqayaa waana la dhaqaajinay wuxuu ahaa Farxaan Maxamed Doore oo jooga Sweden hadda inta noqoto dhismihii dhameystirmay iyagana waxa qayb laxaad ka qaatay qalabka aadka u quruxda badan leed aragteen ee runtii hospitaallo Soomaaliya ku yaalo yaalaanba uu yar yahay ama ayna jirinba hospitaallo private waa laga yaabaa laakiin hospitaal public ah oo qofna lacag laga qaadin yaala ayirihiin waxa keenay oo ku dadaalay in la helo Dr. Tahliil Cabdi Afrax mudane Cabdiqaadir Sayd Axmed Xaaji Yuusuf mudane Faaruq Cabdullaahi Xaaji Yuusuf ayaa ka mid ah dadka ugu waaweyn sidoo kale munaasabadu inta ay socotay ayaa waxaa hadallo ka soo jeediyay qaar ka mid ah marti sharafta lagu casuumay munaasabada xarig jarka qaybtan cusub ee qaabilsan hooyada iyo dhallaanka ee lagu soo kordhiyay isbitaalka dhexe ee magaalada Cadaado waxaana qurbajooga ka shaqeeyay hawshan ay ku amaaneen doorka ay ka taagan yihiin shaqada isbitaalka dadka u dhashay deegaankan ximan xeeb jooga loogama fadhiyo oo kaliya inay isbitaalka 30,000 hadda laga hadlayo inay qabtaan waxay tahay isbitaalkan hadda hay'ad ayaa wax yar oo khidmad yar bixisa qofkuna waxa ugu qiimiga badan leh waxa weeye waxa Ilaahay isagu u siiyay laakiin waxa uu qof magan u yahay inta ay si socodona lama oga waxaan rabaa uga faa'iideysanayaa munaasabadan in isbitaalkan iyo shu'uuntiisa iyo dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha dhammaan inay suuragal tahay inay mutaan gacanta dadka ximan iyo xeeb ugu dambeyntii ayaa munaasabada waxaa soo xiray madaxweynaha maamulka ximan iyo xeeb Cabdullaahi Cali Maxamed Kadiya Baarleh waxaana uu ammaan ballaaran u soo jeediyay qurbajooga qabtay hawshan dhiirigelinta leh sidoo kalena waxa uu sheegay in loo baahan yahay in si isku mid ah looga shaqeeyo horumarinta caafimaadka deegaanka bulshada dawlad goboleedka ximan iyo xeeb waxaa laga rabaa oo looga fadhiyaa 3 sano oo soo socota haddii aan la idmo waxyaabo taariikhi oo la rabo inay taariikhda Soomaaliyeed meel weyn ka galaan horumarka ximan iyo xeeb ay gaartay waa horumar muuqda oo dhan walba leh taas marka waxaa la rabaa inaan annaga dhexdeena ku hayno ummadan inaan u sheegno dhulkan qof walba oo Soomaaliya ku safri kara qof walba oo Soomaaliya ka ganacsan kara qof walba oo Soomaaliya degi kara markaan intaas ummadda ugu baaqno mas'uuliyadana soo raacaysa qofku waa inay waxbarashadiisa diyaariso waa inay caafimaadkiisa diyaariso waa inay amnigiisa diyaariso waa inay meelo badan wax ka fiiriso ma ahan markii ugu horeysay qurbajooga ka soo jeeda ximan iyo xeeb uu isku taago ka qayb qaadashada howlaha ka socda isbitaalka dhexe ee degmada Cadaado
iyadoona tan ay noqonayso qayb muhiim u ah isbitaalka oo haatan lagu soo kordhiyey. cabdiftaax axmed cali shiino, Somali Channel, Cadaado. maamulka dekada Berbera ayaa guddoonsiiyay shahaado sharaf ganacsadaha xoolaha dhoofiya ee Salebaan Al-Jaabiri. warkaas waxaa magaalada Berbera ka soo diray Maxamed Cabdilaahi soo fadhiiste oo Somali Channel uga soo warama Berbera. shahaado sharaftan oo ay soo diyaariyeen maamulka dekada Berbera ayaa lagu maamuusayay ganacsadaha Carbeed ee Salebaan Al-Jaabiri doorkii uu ka qaatay dhoofinta xoolaha Soomaaliland iyo iibgeyntoodaba. waxaana xafiiska Mariyaa dekada Berbera saaka lagu qabtay xaflad shahaado sharaf taasi lagu guddoonsiinayay wakiilka shirkadda Al-Jaabiri ee Soomaaliland Aadan Axmed Diiri Aadan Baradho. waxaana xafladaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi. shahaado sharafyadan oo laba qaybood ahaa ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyay Mariyaha dekada Berbera Injineer Cali Xorxor. labadu waa Al-Jaabiri uga furitaanka xoolaha furitaanki baakii saaka xoolaha laga qaaday dagaalkii uu ka galay iyo hawshuu ka qabtay inta waxa weeyaan suuqgeynta xoolaha Somaliland weeyaan waayo waxaa loo leeyahay imika loodii shibmatii ama markii ugu horreeyay waxaan tagay maalin oo tagtay Suudiga oo 4 sanadood xidhay waxaan bishii dhaaftay ayaa doofiyey waa suuqan arka intaa le waxa uu tirsan yahay dad kooban uu tirsan yahay dadka dhalinyarada ee magaalooyinka joogana xawlkama hayaan gaadiraal badan baa la galay oo ay mahadsan yihiin. gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo maayarka degmada Berbera ayaa iyaguna ku amaanay shirkadda Al-Jaabiri iyo doorkii ay ku lahayd suuqgeynta xoolaha nool ee Soomaaliland iyo inay mutaysatay shahaado sharafyadan. wakiilka shirkadda Al-Jaabiri Aadan Axmed Diiri Aadan Baradho ayaa isaguna sheegay inay shirkaddan mutaysatay shahaado sharaftan qiimaha weyn ee ay ugu fadhido guud ahaan ummadda reer Soomaaliland. maalintii aynu liidanay xoolaheena inaga xidhnaayeen ee aynu runtii aad u baahnayn cid ninkii nala dagaal galay ee u hawl galay xoolaheena sidii loo furi lahaa garashada uu gartay maareeyihii inaynu xusno oo shahaado sharaf ku xusno xafladana ku soo qaadno runtii waa qiimo aad u sareeyay weeye waa garasho aad u sareysa weeye aad iyo aad baan iyaan uga mahadnaqayaa sheekhiina way idinka gaarsiinaynaa haddii la idhaahdo shahaadada iyo mahadnaqaba waa gaarsiinaynaa runtiina waa dhiirigelin. ugu dambeyntiina waxaa shahaado sharafyadaasi wakiilka shirkadda Al-Jaabiri Aadan Axmed Diiri Aadan Baradho guddoonsiiyay Mariyaha dekada Berbera iyo maamulada gobolka Saaxil iyo degmada Berbera. Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay Somali Channel, magaalada Berbera. magaalada Amsterdam ee dalka Holland ayaa waxaa ka furmay xilli ciyaareedkii qaboobaha waxaana warkaas nooga soo diray magaalada Amsterdam Cabdiraxmaan Nuur Abukar oo Somali Channel halkaa uga soo warama. waxaa magaalada Amsterdam ee wadanka Holland ka furmay ciyaaraha xilliga qaboobaha ee sanad walba ay soo qaban qaabiso ururka hirday xaruntiisu tahay magaalada Amsterdam. xilli ciyaareedkani ayaa waxaa ka soo qayb galay kooxaha dhalinyarada kubadda cagta iyo kuwa basketballka ee ka dhisan guud ahaan wadamada qaaradda Yurub. xilli ciyaareedkani ayaa jirsaday sanadkii 9aad ee soo qaban qaabiso hay'adda Hirda. sanadkani ayaa sanad aad u xiiso badan markii loo fiiriyo sanadihii hore. xilli ciyaareedkani ayaa waxaa ka soo qayb galay madax kala gedisan oo ugu horeeyay danjiraha dowladda federaalka Soomaaliya u fadhiya xarunta midowga Yurub iyadoona sidoo kale ay ka soo qayb galeen madaxda sportiska iyo mucjisada kubadda miiska ee u ciyaara xulka wadanka Holland Magan Daahir iyo ciyaartoydii hore ee qaranka Soomaaliya isugu jiray rag iyo dumar iyo fanaaniin iyo dadweyne kale oo aad u fara badan kuwaas oo iskaga yimid guud ahaan wadanka Holland iyo wadamada dariska la ah. xilli ciyaareedkani ayaa waxaa daaha ka rogay danjiraha dowladda federaalka Soomaaliya ee u fadhiya midowga Yurub Dr. Cali Fiqi. والله درeenkayga aad buu fiican yahay aad baan ugu farxay meeshan inaan imaado aan arko dad muwaadiniin Soomaali oo ku howlan maarkiino horumarinta bulshadooda marka aad baan ugu farxsanahay inaan liigu martiqaaday inaan maaragtay maanta aan fursadan weyn inaan furo ciyaarta oo sagaalaad maaragtay hay'adda Hirda ay qaban qaabiso oo ay maaragtay gudoomiye ka tahay Faadumo Maxamed Faarax marka aad baan ugu faraxsanahay wallahi anaga hadda ka safaarad ahaan waxaan aadan u tixgelinaynaa waayo bulshada aan mathalno waaye marka waxaan jecelnahay mataqaana in
cayaaraha caafimaadka bulshada waaye haddii cayaaraha dadka ay balooni dheelaan carabta waxay tiraahdaa alcaqlu saliim fi ljismi saliim caqliga wanaagsan wuxuu ku jiraa jirka wanaagsan marka jirka wanaagsanna waa jirkan oo cayaaraha ku hoolan maskaxdana maskax fiican dhalin karta mar sidaas darteed anaga aadaan ugu dhiirigelinaynaa in bulshada Soomaaliyeed dibadda ku nool in cayaaraha ay tixgeliyaan agaasimaha guud ee ururka Hirda Tutoreysa Faadumo ayaa ka warbixisay waxyaabaha ugu duman yahay sanadkani xilli ciyaareedkii hore wallahi aad ugu faraxsanahay inaan arko dadkii Soomaaliyeed u soo shaqeeyay oo legendiga ahaa sida Maxamed Ismaaciil oo kale iyo dhammaan iyo Diinaash oo kale oo ahaa macnaha qareen oo macnaha ka aha ciyaaraha basketballka macnaha dad badan oo Soomaaliya u soo shaqeeyay oo u soo magaca Soomaaliya kor u qaaday inaan maanta inta ku helo aad ugu faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay in xataa maanta ambassadorkii uu nala joogo oo garabkayga uu taagan yahay maanta waxaan rajaynayaa asaga Ilaahay inuu u fududeeyo hawsha maanta loo soo magacaabay oo hadda waqtiga yar uu hayo annagana macnaha as a diaspora organizations ama diaspora laftirkooda uu noqdo mid isku xira oo isku keena inay diasporahii wadanka dib macnaha dib ugu noqdaan oo wax ka qabtaan aad ugu faraxsanahay waxaan jeclahay in macnaha dadka kale oo Soomaaliyeed oo aan chance u helin maanta inay nagala qayb galaan ciyaartan ayagana mar ay chance u helaan oo aan awood u yeelno inaan casino ayagana ugu dambeyntii wafdiga la socday safiirka ayaa ka dhiibtay dareenkooda kaga aadan xilli ciyaareedka la iskugu keenay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku kala nool wadamada qaaradda Yurub sida uu safiirku u sheegay waa emotionally dareen aad iyo aad u sareeyo in aan aragno kooxdii dhalinyarada Soomaaliyeed iyo ciyaartoydii Soomaaliyeed oo dib u soo noolaanayso sidoo kale waxaan hambalyo gaar ah u soo anoo ku hadlay magaca safiirka magaca safaaradda waxaan hambalyo bogaadin u soo dirayaa hay'adda Hirda oo soo qabanqaabisay waxaan leeyahay barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen Cabdiraxmaan Nuur Abuukar Soomaali Janna xarunta wadanka Holland magaalada Amsterdam waxgarad iyo aqoon-yahano ku shiray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa baaq ka soo saaray dagaalo barihii ugu dambeeyay ka dhacay gobolada Shabeellada Hoose iyo Hiiraan Caawil Nuur Shire ayaa warkaan nooga soo diray Minneapolis kulan ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda beesha diray waqooyiga Ameerika ayaa caawa lagu qabtay howlka Safari ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kulankan ayaa ujeedadiisu ahayd in looga soo horjeedo dagaalada laba geesoodka ee ka socda gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Hoose kulankan oo ay ka soo qayb galeen waxgaradka beesha direed aqoon-yahano siyaasiyiin iyo haweenka ayaa halkaa waxa ay ku soo bandhigeen sida ugu xun yihiin dagaalada haatan ka socda gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Hoose sida la og yahay gobolka Hiiraan ayaa waxa ka socday dagaal ay dadna ku dhinteen kuwa kalena ku barakaceen dadna ay ku dhaawacmeen dagaalkan ayaa beeshu waxay tirsanaysaa in dhibaatooyin lagu geystay deegaano ay degan yihiin dadkii halka ka soo qayb galay ayaa sidan fariintooda u diray ku aadan dagaaladan ay uga soo horjeedaan Shabeellada Hoose iyo gobolka Hiiraan halkan caawo waxaan iskugu nimid barnaamij ku saabsan dhibaatooyinka koonfurta Soomaaliya ka dhacay aasatan Shabeellada Hoose Hiiraan Shabeellada Dhexe marka waayahan waxa soo noqnoqday dagaaladan aan dhamaadka lahayn ee ka socda goboladaas aan soo sheegnay waxa ugu dambeysay waa gobolkaasi Shabeellada Hoose sida aad la socotaan waxa laga wadaa barakac iyo kicin iyo muxuu ahaayeen in beeraha la gubo guryaha la gubo waa waxaan Soomaaliya lagu arag way wax cusub way oo Soomaaliya hadda ku soo kordhay wali lama hayo beer la gubay inta 23 sano ay mataqaana dagaalka socdeen iyo guryo la iska gubo marka waxaan leenahay dawladda Soomaaliyeed iyo baarlamaanka Soomaaliyeed oo ugu weyn yahay madaxweynaha Xasan Sheekh waxyaabaha ka dhacaya gobolkaasi in talaabo cad laga qaado oo la joojiyo waxa la wado waxa nasiib darro ah 23 sano oo Soomaaliya ay socotay oo dhibaatada ay ku jirtay muddooyinka u dambeeyay hadda dagaal qabiil uu dhamaaday dagaalo kale ayaa socday kuwa qabiilkuna inay soo dhamaanayaan ayaa la filayay markii ay timid dawlad federaal ah oo adduunku ictiraafsan yahay oo ciidamo loo sameeyay oo technical la siiyay oo hub loo fasaxay oo annagu aan u hambalyeynay ummad kastaba ay soo dhaweysay in dhibaatadii ay dib u bilaabato ayaan darro aan la filaynin waay xibnaha dawladdu ay ka kooban tahay waxaan u sheegaynaa in aan kalsoonidii iyo rajadii aan ka lahayn dawladda Soomaaliyeed haddii aan nahay beelaha direed in aan ka rajo la'nahay quusna aan ka taagannahay
waxaan codsanaynaa in arrimahaas habkii aanu filaynay ama laga rajaynaya ama dadweynuhu sugayay in wax looga qabto waxa weeye Soomaaliya caasimadeedu waa Muqdisho meesha dawladdu ay caasimad u ahayd Muqdisho weey meesha Soomaaliya oo dhan ay heshiisanaysay waa Muqdisho meesha Soomaaliya oo dhan yaani mataqaanaa ay yidadiilo dawladeed ay ka sugaysay Muqdisho weey in maanta ummadii wax hogaaminaysay ee caalamka oo dhan aqoonsaday ee u sacabtunay maanta inay ku soo duulaan meel ay degi jirtay oo yar oo beera ah inay maanta ciidankoodii oo dharkii askarta qaba oo technically wata in maanta ay ku soo duulaan oo lagu laayo masaakiinta oo guryaha lagu gubo oo gabdhaha lagu xoogo oo saqiirada la dilo oo kaarar la mariyo oo guryaha lagu gubo annagu ma aanan filayn waxaan filaynay ma cimrigaygu ma gaabna in yar maanan cunaynin ciidda maanan dul joogin codkiiba iga gaboobay xubbigii rabbigay iyo xadradii nebigii iyo xayaadkiiba yareeyo xabaab buu iga yeeshay sida caalim wadaada cimrigiisu yaraagay curadkii uu hagaagay cilmigii ku fogaaday diintu caamay ku yeeshay ilaahay ku ciseeyay kitaabkii kala baadhay casar dheer ku bilaabay ma sidiisaan durdurshaayo daboolkan ka rogaayo dawadaan meerayaayo dariiqaan ku ridaayo dabcas baan ku shidaa midda kale waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego oo nabadda jecel ee caalamiinta ah ee Soomaalinimada ay ku jirto waxaan u sheegayaa maanta Soomaali dawlad ka jirto oo la isku halleyn karo ma jirto sababtoo ah waaba loogu talgelin inay dawlad ka dhalato saas daraadeed annagana ha nala yaabina sababtoo waa nooga horreysay annaga waa nala dilay waa nala laayay mana sheegin jirin hadda adinka gobolaysi iyo federaalskan markaan u soo istaagnay inaan danayna ka hadalna waa xabad badan ugu amsinaya ugu dambeyntii waxgaradka ayaa ku soo gabagabeeyay fariin ku aadan dawladda federaalka in ay wax ka qabato dagaaladan maadaama haatan aan la haysan cid kale oo wax ka qaban karta oo awood u leh inay dhex gasho beelaha Soomaalida ee ku dagaalamaya gobolada Shabeellada Hoose iyo gobolka Hiiraan Awil Nuur Shire Somali Channel Minneapolis mid ka mid ah ismada magaalada Buuhoodle ayaa wuxuu ku baaqay inay shir iskugu yimaadaan beeshiisu mar labaad warkaas waxaa nooga soo diray magaalada Buuhoodle wariye Cali Dhagjar Garaasalebaan Buraale Aadan oo ka mid ah ismada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Buuhoodle ayaa cilaamiyay in beesha Yaxya Cabdulla oo isinu yahay ay isugu yimaadaan shirweyne wada tashi ah oo ka dhici doona deegaanka Goljan oo ka tirsan gobolka Cayn waxaana uu garaadku u sheegay in shirkaasi looga hadlayo ayaha beesha Yaxya Cabdulle waana kan garaadku isagoo faahfaahin ka bixinaya shirkaasi بسم الله الرحمن الرحيم ساكا halkan waxaan ku qabanayaa wasaxaafadeed anigoo ujeedada aan ka leeyahay ay tahay in aan ogeysiiyo beesha Yaxya Cabdulle in ay leeyihiin shir yeelan doonaan shirkaasina uu noqon doono bisha February 2 magaalada Goljanno shirkaas haddii alla yiraahdo oo alla idmo waxa la doonayaa in si fiican looga soo qayb galo in dhammaan cuqaasha odayaasha waxgaradka culimada ganacsatada iyo bulshada qaybaheeda kale ee beesha ah inay shirka tixgeliyaan qiimaha uu leeyahay ay siiyaan ka soo qayb galaan waana danaha beesha wax siyaasada shaqo kuma leh cid kale oo wax lagu yeelayo iyo cid kale oo loo shirayaana ma jirto horumarka beesha iyo magaha oo waxoogaa yar habcay dadku aan in badan is arag sida beesha hore loogu marin lahaa magaalada cusub ee la sameeyey waxyaabaha ayaa beeshu ay ka shiraysaa siyaasadna shaqo kuma leh shirkuna waqtigaa weeye marka waxaan ku boorinayaa dhammaan xubnaha kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee beeshu inay shirka ka soo qayb galaan soo taageeraan
qurbajooga waxaan ka codsanayaa uguna baaqayaa ogeysiinayaana in shirkaasi uu waqtigaas yahay in iyaga kaalmo dhaqaale looga baahan yahay ciddii ka soo qayb galaysana insha allahu aad loo soo dhaweynayo waxaa ismaan facaal dhagshar telefishka caalamiga ee Somali Channel magaalada Buuhoole ee xarunta gobolka Cayn salaadiinta iyo haweenka gobolka Awdal waxay kulan xog waraysi la yeesheen madaxdii maamulkii Awdal State oo dhawaan heshiis la galay xukuumadda Somaliland Cabdifataax Axmed ayaa Boorama ka soo diray warkan kulamadan maanta magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ka dhacay waxa ay dhaxmareen madaxda maamulka Awdal State ee dhawaan heshiiska la saxiixday xukuumadda Somaliland booqashadana ku jooga magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal salaadiinta uqaasha waxgaradkii haweenka gobolka Awdal ka soo jeeda kulamadan waxay ahaayeen kuwa la isku dhaafsanaya aragtiyo kala duwan oo ku saabsan horumarinta gobolkan iyadoo bulshada ku dhaqan gobolkan ay madaxda ka socota Awdal State ugu xog warameen xaaladaha ay ku sugan yihiin bulshada goboladan Awdal iyo Salal ku dhaqan waxaana kulamadan ugu horeen ka hadlay Suldaan Saleebaan Cali Ismaaciil Suldaan Yuusuf Axmed Cadar Suldaan Nuur Axmed Jibriil iyo Caaqil Maxamed Caqli Caateye calaamada sumada oo sabaro ku leeyahay oo aan rajaynayno inuu halka uu doonayo himiladiisa uu hiigsanayo inuu gaadho haddii ilaahay waxaan balan qalaynaa haddii alla ka dhigo Awdal State dambi maaha anuu xafiisyada ka anaa ah geelo fiirarta halkan anoo dooro waxay xafiisyada war baa laga geyn baa leeyo xafiisyada markay halkee la geyn baa bartaasaan taagnaanay uga taagnay dad joogta sidaan u sheegaanaya sidaan wuxuu qabanaya sidaan u hagaajinayna daydagiina sugaysaa dibadii way ka timi halkan baa loo imaatay wixii naga maqanan raadsano magacaas umadeela loo gani aan ku raadsano waa tala fiican maan leh wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta Somaliland mudane Xasan Daahir Dhimbiil oo kulankan isaguna ka qayb galay wuxuuna rajeeyay inay kulamadan noqon doonaan kuwa ay ka soo baxaan waxyaabadan oo ah bulshada ku dhaqan goboladan Awdal iyo Salal sidoo kale mas'uuliyiinta ka tirsan Awdal State ee dhawaan heshiiska la saxiixday Somaliland booqashadana ku jooga magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal oo hogaaminaya madaxweynaha maamulkaasi Awdal State mudane Rashiid oo Nuur Xirsi oo kulankan iyaguna ka hadlay ayaa waxay cabireen dareenkooda iyo waxyaabihii ay kula heshiiyeen xukuumadda Somaliland قد وحبري جلتين فما أنت خرك إذا كذا شو ساوي بعثير هذا فاهم سيادة ساوي بتقاني راتي قال كلا شيء ما هو يدين دم ما توحب عنه ما كفاية بدل ما يدين دم ما توحب عنه ما كفاية بدل ما كحتى إذا نستبق قاين شقاين إيه ما ركي قبيلة أنا ما أنت لقى بلا هذا الناتجرة كعدم وكبر قيبة وحب كعدم وكبر على ما ركت نحوها صلاتين وين السوداء وين شاشات صوت جوكسين intaydan ma doonayna inaad horta barinadna waraysataan oo aad fahamtaan faa'iidada iyo nuxurka ku jira Awdal State ay ahayd si kastaba arrintu aan noqoto fursadaasi weli waa la soo sheegayaa Somaliland ma jirayso cid baadhis in qof kasta oo reer Awdal ah ha noqdo inaga gudaheena ha noqoto dibadda inuu helo xaqii u lahaa qofka reer Awdal inuu helo way ayaan mishanka maanta aan wadnaa ee Awdal State isnay oo haddana uu ku dhisan yahay wadanta caamka ee shacabka reer Awdal wadii shaqaynay aan hadda ka shaqaynaynaa aan ka shaqayn doonaa intii ilaahay cumriga gaarsiino inaan hoos uga soo degin danta caamka ee shacabka reer Awdal taasaa aniga waxay taraysa taasaa ilmahayga wax taraysa taasaa mandaqada guud ahaan iyo gaar ahaanba wax taraysa marka walaalayaal waxaa laynooga baahan yahay Cabdifataax Axmed Somali Channel magaalada Boorama xildhibaanada golaha deegaanka iyo saraakiisha ciidanka ee Buuhoodle ayaa baaq ka soo saaray sidii loo taageeri lahaa xabsiga dhexe ee degmada Buuhoodle warkaas waxaa nooga soo diray magaalada Buuhoodle wariye Cali Dhagjar oo Somali Channel uga soo warama halkaasi gudoomiyaha degmada Buuhoodle iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Buuhoodle saraakiil ka socday ciidamada ammaanka Buuhoodle ayaa waxay dhamaantood si wada jir u booqdeen goobta uu ku yaalo xabsiga dhexe ee Buuhoodle oo muddo badan qabiy ahaa waxayna mas'uuliyiintani si wada jir ugu baaqeen in loo baahiyo in xabsiga la dhiso si loo adkeeyo ammaanka guud ee gobolka Cayn ana ugu horeelkaasi si wada jir uga hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka Buuhoodle gudoomiyaha ku-xigeenka iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada ammaanka ee Buuhoodle kiyaanu ugu talagalay in laga dhiso jeelka ayaanu dhexdeedii taaganahay
rajaynana insha Allah xilli dhow inay jeelka dadka lagu xidho noqoto xabsiga lagu xidho dadka dambiilayaasha lagu ururiyo lagu xidho ay noqoto sidaas aan rajaynayna insha Allah iyadoo aan isugu tashanno dibadda iyo gudaba in arrintaasi ay noo hirgasho haddii Ilaahay idmo halkan aad aragtaan aanu taaganahay waa xabsigii magaalada Buuhoodle ee qabyada ahaa waxa uu cabirkiisu leeyahay saad u aragtaanba dhulka uu ku fadhiyaa ee loogu talagalay dhismaha waa 50 mitir oo lagu dhuftay 50 mitir wuxuu leeyahay wadooyin wuxuu leeyahay barxad Buuhoodle waa magaalo weyn kama maaranta jeel waxaanu ku boorinaynaa dadka gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn dadka Soomaaliyeed iyo dadka khaas ahaan degan gobolkan Cayn meel kasta joogaanba in laga qayb qaato dhismaha xabsigan haddana waxaan leeyahay qurba joogta Sool Sanaag Cayn gaar ahaan reer Caymayd waxaan leeyahay ilmaha reeyaal waad aragtaan xabsigii xabsi la'aanna gobolku hadda ma shaqaynayo ciidanka hadda jiraana si kastaaba u shaqeeyo haddii cidda uu qabto aanu meel ku rida aanu hayn dee ma suurtagal guriga lagu ilaalin karo waxaan leeyahay war wax badan baad qabateen idinka laftirkiinu waan idin mahad celinaynaa waxa inagu haray waa xabsiga inaad xabsiga fadhiga uga kacdaan oo gacmooda jir bay wax ku go'aan bale waxaad kan yahay baan mas'uuliyadda gobolka wixii barnaamijkaas oo kala waxa u xil saaran golaha deegaanka haddaan lala shaqeyno dibadda iyo gudaba laga shaqeyno ma shaqeyn karaan waxyaalaha ugu daran waxa weeye imika gaari isku ragaa haddaan loo keenin oo ay qashinka ku guraan dhinacna ay uga faa'iideystaan ciidamada oo aanay dadka ku ogolaysiin cashuurta dee waa kala dhantaalmayaan talabaad waxaan leeyahay dadka u dhashay deegaamada Khaatumo gaar ahaan gobolka Cayn haddaad tihiin kuwa guda jooga iyo haddaad tihiin kuwa qurba joogaba qof walba waxaad ka qaban karto waa inaad ka qabataa xabsiga kii muruq ku taageeri kara kii maal ku taageeri kara وعلى عثمان الفعال الدكتور تلفزيون عالمي Somali Channel magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka magaalada Garowe waxaa kaga dhawaaqay musharax cusub inuu u taagan yahay xilka madaxweyne ku-xigeenka Puntland Maxamed Xirsi Ducaale warkaas waxaa noo haya wariye Samira Cabdiraxmaan Cabdulle oo Somali Channel uga soo waranta Garowe دكتور محمد حرسي دعالة وزير الدولة هوري وزارة عافمات كبنتلان ومانتا ورباهينتا كلها الله قروي أيا وحا وشاعيين وتاغن يهي حلقة مدحوين كحقين كبنتلان وحانا وتلمامي مروكا اللي تاريخ ديسا إنو خبرة ديرو اللي يهي مركا الله إيغو أرمها بلشدا عافمات كا وحبرشدا يولي بأمنيقا وحانا وانتاسي راعيي إنو حلال بدن كسوق دولده سومري دالكا وحان مشرح أهي kaalinta madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ee sanadka 2014 ilaa 2018 haddii aan tafaasiil gaaban iska bixiyo waxaan ahay nin aqoon-yahana oo waayo araga oo xukuumadihii dalka soo maray muddadii xorriyadda la haystay oo dhan la soo shaqeeyay waxaan soo qabtay jagooyin kala duwan waxaan si gaar ah qayb uga soo qaatay kulankii dheeraa ee Carta kii Imbigati shirarkii lagu qabtay Boocame oo Boocame 2 iyo Boocame 3 loo yaqaano waxaan khibrad dheer u leeyahay dhinacyada caafimaadka waxbarashada amniga iyo arrimaha bulshada sidoo kale musharax Maxamed Xirsi waxa uu sheegay in hadii uu ku guuleysto xilkan uu u taagan yahay uu isu keeni doono dhammaan gobolada Puntland oo uu xusay inuu u mari doono qaab nabadeed waa sida uu hadalka u dhigay sameyn doonana waxbarasho tayeysan caafimaad iyo shaqo abuur hadii aan ku guuleysto xilka aan musharaxa u ahay ee madaxweyne ku-xigeenimada waxaan ku dadaali doonaa inaan isu keeno gobolada Puntland oo dhan anigoo u maraya dariiqooyinka
nabad raadinta wada tashiga isir iyo jaar wanaagga anigoo dariiqooyinka u maraya waxaan ku dadaali doonaa inaanu gaarsiino ummadda reer Puntland amni buuxa caafimaad tayaysan waxbarasho tayaysan biyo nadiifa shaqo abuurid dib u dhis iyo wax soo saar Samir Cabdiraxmaan Cabdulle Somali Channel Garowe degmada Fuqufli ee gobolka Sanaagna waxaa laga soo dayrinayaa adeegyada waxbarasho ee gobolkaasi si uu ku soo waramayo wariye Yuusuf Cabdi Xasan oo nooga soo warama gobolkaasi iyadoo baryahan badaafaha deegaanada degmooyinka gobolka Sanaag ay ka soo yeereysay qayla dhaanta dhinacyada waxbarashada caafimaadka biyo la'aanta iyo taageerooyinka hay'adahaba ayaa waxaa si gaar ah degmada Fuqufli oo ka mid ah deegaanada koonfurta Sanaag ee iyagu helin in badan oo ah taageerada arrimaha bulshada iyo nolosha aasaasiga ah waxaa arrimaha ugu daran ee ka jirta kuwooda ugu muhiimsan ee lagama kacaanka ah ka mid ah xaaladda waxbarasho siba dhinacyada dhismaha dugsiyo la'aaneed agab la'aaneed iyo weliba taageerada agabka waxbarasho ee hay'adaha oo marnaba tan iyo intii ka dambeysay xukuumadii Siyaad Barre aanay helin waxaana Cabdulla Faarax Maxamed oo ah maamulaha dugsiga dayaca qadiimiga ah ee degmada Fuqufli qayla dhaan ka muujiyay xaaladda dugsigaasi sidoo kalena wuxuu maamulka waxbarashada ee gobolka Sanaag ku dhaliilay in aanay haba yaraatee wax xil ah iska saarin sidii ay wuxuun uga dabooli lahaayeen baahiyaha tirada beelay ee dugsigaas ka jira isagoo weliba sheegay wax kala daayay telefoonka markuu garaaco ee ay gartaan in ay ku damiyaan Yuusuf Cabdi Xasan Cadde TV-ga caalamiga Somali Channel magaalada Ceerigaw haweenka gobolka Sool waxay deeq gaarsiiyeen qoysas agooma oo ku nool degmada Taleex waxaana warkaa noo soo diray wariye Cabdikariin Olol oo naga soo warama Laascaanood deeqdan ayaa waxaa ku deeqay haweenka gobolka Sool waxayna ugu talagaleen dadkii dhibaatadu ay ku soo gaadhay iyo qoysaskii ku agoomamay dagaalkii ka dhacay magaalada Taleex iyadoo halkaasina ay ku guddoonsiiyeen heeladii iyo qaraabadii dadkaasi si ay u guddoonsiiyaan iyadoo halkaasina ay haweenka uga mahad celiyeen haweenka iyagu dhaqaalahaasi soo ururiyay waxayna ugu baaqeen shacabka in la caawiyo dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay magaalada Taleex gobolka maxay ahayd taariikhiga ee Taleex ayaanu maanta halka isugu nimi oo aanu u dirayno tacsi iyo lacag aanu iska ururinay hablaha iyaga gobolka Sool ayaanu maxay ahayd isugu nimi waxaanu leenahay inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun walaalayaal tacsida kadib waxaan idin leenahay samra haddii idinka ilaahay ka dhigo dhammaanteen waaynu ka wada samirnay maxay tahay ragga samir ka qaata tacsitiirayale kadib waxaanu u gudbinaynaa oo aan ugu wareejinaynaa guddida faamiliga ah ee ka dhalatay maartay qoyska Taleex lacag tacsi ah oo ay leeyihiin agoomihii aabayaashoodu la laayay oo dhan 1800 hantidaa aan ku wareejiyay Nadiifa Cabdi Ismaaciil aan ku wareejinay walaalayaal waan idinka guddoonay waxaan leenahay caawimada hal la badiyo dadka hal la ogaado wixii inaga habsaamay horaha loogu dhaqsado waana ku mahadsanyiin intii wax soo tartay walaalayaal waxaanu leenahay ilaahay ha u naxariisto wixii dhintay wixii dhaawacana ilaahay ha inoo boogadhayo taasi ayna wada sugaysaa haddaynu nahay reer Khaatuman waxaynu ku jirnaa halgankaas oo aynu rabno rag iyo dumar inaynu goboladeena ku soo ceshano haddii ilaahay qadaro aynan maxay haytay gaabin aynu eegno gobolada hareeraha ina ka xiga waana la wada dhimanayaa ilaahay u naxariisto Cabdikariin Olol Somali Channel magaalada Laascaanood waa hagaag daawadayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa warka telefishinka caalamiga ah ee Somali Channel oo inaga imaanaya magaalada Hargeysa warkan xiga intaan ku kulmi doono waxaan inaga tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh